waa hagaag dhegaystayaal aynu ku bilownay waxaa maanta halkeedii ka sii socon doonta dhegaysiga dacwadda ee kiiska badda ee u dhexeeya dalalka Kenya iyo Soomaaliya walow Kenya ay sheegtay inay ka baxday kiiskaas qareennada difaacaya Soomaaliya ayaa maanta mar kale jeedin doona doodooda iyadoo sidoo kale markii hore uu qorshuhu ahaa laguna waday in qareennada Kenya ay berri bilaabaan doodooda balse haatan taasi dhici mayso mana dhici doonto markii Kenya ay isaga baxday dhageysiga dacwadda haddaba muxuu ahaa nuxurka doodda qareennada difaacaya Soomaaliya ee shalay hadlay maxaa dhici kara haddii mid ka mid ah dhinacyadii dacwaddu ka dhaxaysay aanu imaan maxkamadda horese ma uga dhacday arrin noocan ah maxkamadda ICJ su'aalahaas iyo kuwa kale ayaan weydiiyey qareen Muuse Axmed Xirsi oo ah garyaqaan ku takhasusay qaanuunka caalamiga ah oo degan magaalada Amsterdam ee dalka Holland khadka telefoonka ayuu igu warramay dacwadda waxaa ka soo qayb galay oo yimid dacwadda xaadir ku ahaa Soomaalida Kenya waa tii ka baaqatay dacwadda markii ugu horeysay waxaa furay wakiilka Soomaaliya oo ah Mahdi Guuleed ra'iisul wasaare ku-xigeenka oo ka hadlay furitaankii dacwadda kuna bilaabay inay Soomaaliya qaabka ay u doodeyso inay sax tahay habka Kenya ay u doodeyso oo leenka parallelka la attitude inuu qalad yahay maxkamadana ay og tahay oo xukunno fara badan qaabka ay u xukuntay inuu ahaa qaabka Soomaalidu ay ku doodeyso aan u imaado marka qareennada iyo waxyaabaha ay ka hadleen marka muxuu ahaa nuxurka doodda qareennada Soomaaliya difaacayay qareennada Soomaaliya difaacayay nuxurkoodu wuxuu ahaa waxay aad uga doodayeen oo ay rabeen meesha ka saaraan sheegasho Kenya ay iyagu sida ay rumaysan yihiin arrin cusub ah oo ay leedahay Kenya waxaan haysanaa oo heshiis ku dhacay maadaama dhaqanka annagu meeshan aanu saan ugu dhaqmaynay raalli laga ahaa waqti ka hor xitaa intaan dacwadani bilaabin muddo hore يعني عدايمو نوعاas inaan haysano oo nalo ku dhaqanka aan ku dhaqmayno oo aan xadkan isaan u isticmaalayno isaan u ilaashanayno waxa soo dhamay inay muujinayaan inay xadkaygu u joogay meesha hadda anagu calaamada aan marinay oo ah inaanu parallel xariiq la siman equator-ka la siman dhigta la siman marka looyaradu arintaas ay aad uga doodeen dhinaca qaanuunkana waxay yiraahdeen way ku doodeen inaanaba suurtagal ahayn in qaab noocaasa ama heshiis noocaas maba ka dhici karo way yiraahdeen xuduudaha badda qaanuunka kale international law kale wuu ka dhici karaa laakiin badda kama dhici karo qaanuun ahaan saas ku doodeen waayahay muusow waxaan ognahay in Kenya ay sheegtay inay ka baxday dhageysiga dacwadda maxkamadda oo aanay ka soo qayb gelin maxkamadda marka sidaan oo kale haddii ay dhacdo oo dal uu ka baxo dacwadda maxkamadeed oo dal kale kala dhaxaysay marka maxaa laga yeelaa arrinta noocaas oo kale ah sharci ahaan sida haddaba maxkamaddu ay ku dhaqaaqday dacwaddu way soconaysaa waddanka isagu markaasi dacwadda jooga oo isagu danaynaya in dacwaddii socoto ayaa wuxuu codsanayaa in isaga loo xukumo sida isaga uu dalbaday in loo xukumo laakiin maxkamaddu macnaheedu maaha taas in sidiisii loogu xukumayo maxkamaddu waxay haddana ay aad u fiirinaysaa inay sal leedahay dacwaddu kabacdi xukun bay ka soo saaraysaa xukunkaasina sidii xukun caadi ah oo laga qayb galay oo kale ayuu u noqonayaa xukun mataqaana labaduba ay ku qasban yihiin in la fuliyo jadwalka dhageysiga maxkamadda ee maanta muxuu noqon doonaa maanta jadwalka dhageysiga maxkamadda sida maxkamaddu hore ay u shaacisay wuxuu noqon doonaa isla maalintii labaad oo Soomaalidu ay haddana maaragtay mar labaad ay dacwadeedii sii wadato marka maadaama Kenya ay joogin Soomaaliya ayaa dacwadda soo socotana la dhageysanaya waxyaabaha ay looyaradu keeni doonaan iyo angalka ay ka difaaci doonaan runtii waan arki doonaa saacadaha inuu soo socda waxa ay noqdaan watay Muuse Kenya diidmadeeda kadib maxaa laga filan karaa in Kenya ay ku dhaqaaqdo oo u furan horta sideedaba Kenya waxay kaga hortagaysaa macnaheedu dacwad dambe oo hadii dacwad Kenya lagu xukumo culayska ay ku keeni karto yani haddaba maadaama ay dacwadii ay ka dhigtay dacwadan maaragtay aan ku kalsoonayn waxay samayn kartaa Kenya marka inay pressure siyaasadeed oo ay u marayso ururada kale oo labada wadanba ay qayb ka yihiin sida African Union sida UN-ka oo kale
ma garanaysa meelahaas inay tiraahdo oo arrinta ay u fasirto markaa inay nabadgelyada macnihii gobolka inay khatar ku jirto sida hadda ka horba Kenya ay soo jeedisay oo aragtida Kenya baa ah in mataqaanaa nabadgelyada arrintan khilaafkani badeed Soomaaliya kala dhaxeeya iyo inay maxkamadda ka sii dacwato oo maxkamadda ay maaragtay tiraahdo maxkamaddii cadaalad ma soo wado arrintan khatarteeda ay leedahay. ugu dambeyntii horey ma u dhacday intii maxkamaddan ay jirtay in laba dal sidaan oo kale ay u qoor dhiibtaan maxkamadda oo ay u gardhigtaan dabeetana uu mid ka baxo sidaan oo kale horey ma u dhacday oo ma soo martay maxkamadda oo ma ka garnaqday? dacwado aad fara badan bay maxkamaddu gashay oo sii waday weliba waxay aad u badnaayeen waqtigii 70-aadkii waa aad dacwado badan ay galeen maadaama mariga dagaalkii qabaa u jiray kalsooni badan ma jirin oo maxkamadda lagu dawlad badan ay ku qabeen dacwadda hadda ugu caansan waa dacwadii Mareykanka iyo Nicaragua oo iyadana sidoo kale maxkamadda ay waday oo go'aan ka gaadhay oo go'aankiina markii dambe muddo u jiitamay maadaama Mareykanku uusan raali ka ahayn dacwaddaas aakhirkii u dambeysay adigu si kale loo xaliyay dacwadda kale oo iyana soo martay waa Cameroon iyo Nigeria oo kale oo iyadana muddo qaadatay aakhirkii dambena cadaadis siyaasadeed xal lagaga gaadhay way jiraan laakiin bariyihii dambe inay soo yaraanaysay baad moodaysaa. kaasi waxa uu ahaa qareen Muuse Axmed Xirsi oo ah garyaqaan ku takhasusay qaanuunka caalamiga ah oo degan magaalada Amsterdam ee dalka Holland khadka telefoonka ayuu igu warrabayay. haddaba sidee bulshooyinka Kenya iyo Soomaaliya ee baraha bulshada isticmaala ay uga falceliyeen kiiskan maalintii labaad ka soconaya maxkamadda ICJ waxaan arrintaasi wax ka weydiiyey Caydiid Cismaan oo ka tirsan qaybta warqabadka ee BBC-da. axmedow waxay u muuqataa in ka badan warbaahinta dalka Kenya in ay ka gaabsatay oo ay si weyn aysan uga faalloonin oo ay warbixino dheer uga qoraynin balse dhankaas iyo Twitter-ka ayaa Kenyan iyaga xamadsana ayaa waxa ay falanqeyn ay ka dhiibaan isla markaasina ay ka hadlayaan kiiska bilaabmay waxaana qaarkood ay isticmaalayaan halkudhiga not an inch less oo macnaheedu hataa hal inch uma ogolaan doono Soomaaliya in ay dalkeena ka qaadato waxyaabaha ay ku wadaagayaan barta Twitter-ka ka mid ah hadal uu jeediyay madaxweynaha ugu horeeyay dalka Jomo Kenyatta sanadkii 1960 kaas oo ku sheegay in uusan Kenya damac kaga jirin in hal tallaabo oo dhulka Soomaaliya ka tirsan ay qaadato aysan u ogolaan doonin in Soomaaliya dhulkeeda ay qaadato marka waxyaabahaas ayaa ka mid ah iyadoo dhinaca kalena Soomaalida ay iyagana isticmaalayaan halkudhigyo ay ka mid yihiin ICJ mona maqlaysaa iyo sidoo kale ICJ Soomaaliya iyagoona halkaasi uga hadlayo sheegay in Kenya ay doonayso in qaab sadaqo ahaan ay u qaadato dhulkooda aysan diyaar u ahayn ayna ogolayn in taasi ay dhacdo markii laga soo gudbo waxyaabahan Twitter-ka ay ku qorayaan oo ay kaga hadlayaan arrimahanayta wax si toos ah warbaahinta u soo qortay malahan wargeyska The Daily Nation ugu dambeeyay saacadii ugu dambeeyay isagana wuxuu qoray warbixin oo ku sheegay in Kenya ay dacwad u gudbin doonto golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee UN Security Council dacwadaasi oo ku saabsan in maaragtay ay san ku qanacsanayn kiiskan ka bilaabmay Hague balse wax oo reaction ama waxyaabo ay bixinayaan Kenyaanka oo warbaahinta ay soo qaadatay si toos u soo qaadatay malahan. kaasi waxa uu ahaa Caydiid Cismaan oo ka tirsan qaybta warqabadka ee BBC-da oo ii warramayay. haddii aynu eegno dhegeystayaasha qodobkaas aragtidooda ka soo dhiibtay waxaa ka mid ah Faarax Maxamed Xirsi Good oo jooga magaalada Gaalkacyo waxa uu yiri waan soo dhaweynayaa dhageysiga dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya muranka gelisay waxaan rajaynayaa buu yiri idamka alle in go'aankaas kama dambaysta ah ee maxkamaddu noqon doono mid farxad geliya qaranka iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed aad ayuu mahadsan yahay.